father of Somali nation waqooyi Geoffrey Archer liya suldaankii warsagal maxamed cali shire si shilisoo ku xiray daraawish agtoo maray wixii oday jaqjaq lahay waa xir warloodi waa jira Soomaali dad midnimada u habaysan maahan iyo maamul dhexe midnimada u habaysan maahan maamul dhexe hargeysa ninkaas aasay horta gariyana gaar isu kaan keentay nimanka gumeysta isu kaan keenay adaa xisada joornaaladii aan ku qori 9-tii xoogaal iyo jilada qaran iyo aan ku qori jiray waxaan ku qoray hogaamiye kooxdadii midba laba isaga qaldan iga laba isaga qaldan isaaq lan Soomaalina isaga qaldan Abdullahi laba isaga qaldan Maxamuud Salmaan Daarood isaga qaldan Aydi laba isaga qaldan qabiilka bargii qaran Soomaaliya isaga qaldan Alimaha laba isaga qaldan caasimada Goofa isaga qaldan halkii lagu noqday yani 20 sano kadib sibt loo noqday ku sheega Soomaaliland marka riyaalka macnaha loo fiiriyo waa isaaqlan ninka hadda hargeysa xakuun Seelaayo ayaa markii ay halganka bilaabayeen 88 idaacada BBC waraysi la yeelatay Abdullahi Xaji waraysiga qaaday wuxuu yiri waa qaranka qaybaad ku leedeen xibnaad ku leedeen hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel jinaar hebel iyo wasiir hebel aan u magacaabo kuwaas baadi irmaan weeyo anaka ma watirsan baadi irmaan weeyo haddii 88 yani jaamac gaas macaawi iyo xasan suudi iyo Ismaaciil Janaax ay baadi irmaan ahaayeen maanta soo qancina xagla toosiye xaabsade in uu baahanta metelay sin baadi irmaan hay soo qancina taas su'aal rabta maanta sidoo dadka u gadaya yani xaabsade xagla toosiye ayaa uu baahanta metela soo dadka u gadaya oo gadmayso marka yani waa riyo waxa hargeysa ka socota meel hees ka socota ana waxa mar dooni mayno xumaan u geeysamayno heestaasan ku soo wadaya imaaw yani meesha la ilaa taleex heestaan waxa weeyaan taleex kaalay oo tolka waxtar ama tuugso taleex ma shaqay kartay qaatuma istii wax walba dhaqaalay maamulba waxa wada dhaqaale haddii maamul sameeyay dhaqaale oo asala haddii ciidan sameeyay dhaqaale oo asala haddii nabadgelyo dhaqaale oo asala waxbarasho dhaqaale oo asala waxba furuq waa dhaqaale dikad malahan airport malahan ganacsada waaweyn malahan ma isbixi karaan qaatuma istii waa iska riyo inta aan Soomaalida ka aqaano qabaayil Soomaaliya aqaana dhulbaanta iyo mariixaan iyo cayr iyo xawaale yani maal qabeen ma yeeshaan taariikhdan hore uma dhicin hadda wax dhici doona ma aqaano fartaas biirood yani si kala Allah u sharfa maahane yani maal qabeen ma yeeshaan oo ku soo dhulbaanta mariixaan cayr iyo xawaale maal qabeen ma yeeshaan marka taleex imaw kaale waa riyo heesti riyada horan ku soo wadaya Puntland way garoowe Puntland qof aragti gorgor leh markuu dastuurkeeda akhriyo hoos waxa uga qoran maamulka Puntland nin Maxamuud Salmaan ahayn waa ka xamamno maamulka yani marka fiiriso Abdullahi Yusuf Cadde Cabdiraxmaan Faroole yani qoys ay u xiran tahay gabar la kala dumaalayo naag la kala dumaalayo moodaa okay waxa iska qaldan Maxamuud Salmaan iyo magac daaro hadda yani durbaanka laga tumaayo garoowe iyo qayladanta ka baxaysa Cabdiraxmaan Faroole waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha waa anaku magacaawna warsiyaadu magacaabis ra'iisul wasaaraha waxa sheer u helay qabiil daarooda baawfuyo xoog leh mariixana magan maahan waa qabiil xoog leh magan kuba noqon karo taariikhdii raac dagaalkii Axmed Gurey buug loo Fatul Xabash dagaalyahan mariixana ku xusan laakiin Maxamuud Salmaan kuma xusna nimanka ila Fatul Xabash ku xusan iyo Axmed Gurey ayaa maanta u magacaabaya oo aniga inay iga dambeeyaan yani waa riyo iyada ma socoto waa riyada soo jirtaan ku soo wadaya dalka kalmi maamul ilaa ka jira gaalkacyo 4 waaxood marka loo qeybiyo waax kamida xaafad baraxleeyda ayaa galmudug ka jirta وباليس يعني هوبيو ولا اسكو هيستا حافظ ما نقطه maamul goboleed iyo dawladda war laba mid yeela ama koofur raaca oo dhiigooda noqdo yani ilaa ceel dheer iyo ceel buur iyo ilaa matabaan iyo ilaa beledweyne taga oo dhiigooda noqda ama waqooyi aada oo dhaqan wadaag noqda laamigan ku soo wada ximan iyo xeeb ximan horta ceel lacaga leeyahay oo ku yaala gobolada dhexe oo biyo yar yihiin oo la isku ximiyo la iska kala kaan riixdo markaan maamulkaas jira u fiiriyay iyo inta uu saameeyo ma filayo xataa dadka oo minority garooyaha leeyahay inay wax ka degan yihiin meeshaas u maleemaayo
war qabiil yare jufo yar dowlad ma noqoto madaxweyne ma yeelato war madaxweynaha horta yaan lagu ciyaarin madaxweynuhu ma ogaasaa mise waa madaxweyne erayada marka si xun loo isticmaalo dhibaatay keenaan waxaa taqaana ereyga imperial la yidhaah iyo ereyga gey la yidhaah laba erey fiicnayn imperial boqortooyada ahayd geyna farxaan waaye markii geygiina si xun loo isticmaalo caayo noqday imperialna markuu imperialism waa caayo noqday hadda ereyga madaxweyne laga xishoona in madaxweyne haydhihin ayaad mar arki doontaa yani ereyga madaxweyne hore u soco dhuusmareeb imaw wadaadda xadreeya ayaa xadradii diiday oo xabad qaatay marka yani nimankii xadrada lagu ogaayey nimankii siyaarada lagu ogaayey xabaday qaateen waa riya kale hore u soco hiiraan tag ilaa geesaan kugeynaa gobolka hiiraan macno badan uu leeyahay 13 qabiilaa degan hiiraan 13 qabiiloo degan waa meesha ugu dhibaato badan aad ogtahay shara qaraxa ka dhacay ninaba doonaa ku farxo qaraxaas waa ku faraxsanaa badan aragtay dikad mooyaan qaraxaas waa asiiba ninkii qaraxii jannada Allah uu bishaaray oo reer hiiraan dhahaya sababta uu leeyahay ku sheega gobolka hiiraan waa gobol Soomaaliyeed ayaa dadku jooga badankii qoona waxay joogtaa hiiraan magac gobol maana waa naanays xawaadle war naanays xawaadle ma noqon karo 13 qabiil idin deganna waa idin ka badanna idin ka saasaana haddaad beri chance hesheen oo kontumeeydi ilaala ilaahayeen yamashi cali jimcaale uu siir ahay maanta warkii hore ma yaala sheekada hore ma taal oo kaadiya maamulka inuu dhisaadal matawan iyo maxaas waa degmooyinayeen laakiin ceel cali iyo farlibaax iyo buuqda oo ka waaweyn labadaas degmo looma aqoonsanaa leey waa riya ayaduna taagan yani bahalka la hiiraan aysan ku degi doonin yani sida dumarka loo bahdilaayo maamaadan kun qofood inuu ku dhaweydiyey in ay fasiila hadda ma hayo waxaa kamid ah oday reer u waayeel iyo umursiga say wuxuu ogyahay xuma sheegaan maamaadu lugtoro wax ka sax oday mid ardaara mid tuuga mid dhilaya mid reerka mar daba ku soo biiray mid deeq daran mid saqajaana mid talwaad tolan ayuu reerku dhex ogyahay marka inuu isku wado waa nidaam jira soo ma garan umushu waxa ay qofkan ku aragtay oo gaara ila xidna taran oo la yaqaana haweentu leedahay waa cid ifaansiisa waa ilaa hadda